Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo taxano ah oo aanu ka diyaarinay silsiladii caanka ahayd ee Deeley, taasoo aanu idinku soo gudbin doono iyadoo qoraal iyo codba ah si ay u noqoto dhaxalgal dhalinteena dambe ee Soomaaliga ama maqalkeedu ku adag yahay ay iyadoo qoraal ah u helaan. Haddaba silsiladan Deeley oo bilaabatay 10kii bishii 12aad sanadkii 1979 ayaa waxaa la sheegaa sida aanu ka soo xiganay waraysi laga qaaday Gaariye oo ka waramaya ayaa waxaa jidhay markii uu fashilmay isku daygii kacaanka lagu afgambin rabay ee ay maleegayeen nimankii dhalinyarada ahaa ee militariga ahaa ee 9kii Abriil 1978 waa tii taliskii Maxamed Siyaad Barre uu saraakiishii inqilaabka waday uu xirxiray ka bacdina toogtay. Intaas wixii ka dambeeyay ayaa waxaa bilaabatay silsilad magaceeda la oran jiray Maruuriyo oo uu bilaabay Khaliif Sheekh Maxamuud oo ku bilaabay gabay la oran jiray Hurgumo oo uu taliskii Maxamed Siyaad Barre ee ragga dhalinyarada ee askarta toogtay ee inqilaabka isku day aad ugu dhaliilayo waxna uga sheegayo. Ka bacdina rag baa tix raacay oo qabiil cay iyo aflagaado ayaa meeshii ka bilaabatay. Haddaba intaas kadib ayaa abwaaniin ay ugu horeeyaan Gaariye iyo Hadraawi ayaa waxa u yimid dhalinyaro badan oo la jifo ahayd kuwaasoo ka codsaday in maadaama silsiladaas Maruuriyo aad u caanbaxdo aad u socoto laysna qabiil caayayo inay bal wax ka dhahaano ay iyaguna qaybtooda silsiladaas ka qaataan. Haddaba Hadraawi iyo ninka la yiraahdo Gaariye say sheegeenba markay raadiyeen meesha cajiladaha lagu badiyo ee silsiladaas Maruuriyo ee laysqabiil caayayo ay ka socoto ayaa tooshkii wuxuu la galay xafiisyadii dowladda, waxayna ogaadeen in qabyaaladda iyo isku dirka qabiilada ay dan ugu jidhay xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre oo iyaduba ay ka dambayso inay cajiladaas faafiyaan. Intaas wixii ka dambeeyay ayay silsiladan Deeley bilaabatay 10kii bishii 12aad sanadkii 1979. Haddaba silsiladaas ayaa waxaa bilaabay Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye, wuxuuna ku bilaabay hees magaceeda la oran jiray ama maanso magaceeda la oran jiray Dugsi Male Qabyaaladii. Haddaba nuxurka guud ama ujeedada guud ee maansadan koobaad ee silsiladii Deeley ee uu noo tirinayo Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye magaceeduna yahay Dugsi Male Qabyaaladii ayaa waxay tahay inuu uga waramayo aafooyinka iyo musiibada ay qabyaaladu leedahay. Wuxuu kaloo carabaabayaa in nimanka maamulka haya ama dowladda inay ka dambeeyaan inay soo laba kaclayso soo noolaato qabyaaladu. Haddaba maansadii koobaad ee Deeley ee Dugsi Male Qabyaaladii iyo abwaan Gaariye waxay ku bilaabanaysaa sida tan: digdhe deelka maansada tixodur iyo daabaca isku duubni wadareed ha ka dudashan xubluhu arrin waa la diga rogay dooniyihii la raran jiray marka baa ka daba yimi cirka haada duushaa ka duuduubtay samadii waxaa helay dayuurado deja baalashii yidhi daacuunkii fidhidhkiyo daaniyihii dhaqaalaha rag duraa ku soo baxay kuwa daafka fidiyiyo dablayaasha dhimanow digtoonaada way kane afartaa docdaa mari darsigaygu waa meel taariikhda duugga ah waxaan ugu hordaabacay xil damiirku qaadiyo waa faral dushayda ah qalinkiyo dawaadda inaan fuliyo ii diray nin qabyaaladoo jow
doqoniimo waa cudur. Haddii aad dux leedahay, bal docdaada uun eeg. Inta dumar agoomo ah, inta darib nin lagu cunay, inta duul ku qaran jabay. Waxaan uga dan leeyahay, debec yaa lahaayey, maxaa degal ku baaba'ay, maxaa dhacay umula doox. Anigaa nin dooriyo, anigaa wax dumin kara, maxaa beel ku damug tidhi, dulbaaxdiinna loo wadhay. Darka iyo xareed iyo daaq laysu qoonsado, dirirtiyo colaaduhu maxay haaddi biriyeen. Islaan wiilkii laga dilay, dugayay maxay tidhi, dadab iyo aroos iyo aqal labo daryaale ah, maxaa daaha loo rogay. Waxaan uga dan leeyahay, sumad iyo dirsooc iyo qofkii duuf ku noolow, alla doori baa tahay. Soomaali waa duud, dakanqabe ha joogee, waa ul iyo diirkeed, daris iyo tol wadayaal, nin dallaana kala gura. Qabiilkii doraad yiil, isticmaarkii baa dumay, shalay dabakanaax iyo dibbutaati baa waday, maantana dilaal iyo dibbir baa ku xoogsada. Waa dabin qarsoodi ah, ummadday ku dagayaan, qoloqolada loo degay. Kama dhalan dadweynaha, ragga dacarta huriyaa, waa kooxo duumo ah. Daadihiyayaashiyo maamulkay ku duman yiin, qaar baa daktooro ah, digrigoodu madhan yahay. Qaar baa durbaana leh oo daacaddii jaray, darna waa hagoogtaan. Waa daniyo waaweyn, isku soo dabbaal oo waa dabaqad meel jecel. Waxaa loo dig leeyahay dhididkayga dahabka ah, sidii loo dudubin laa. Afartaa docdaa mari, dugsi male qabyaaladi. Waa dararta baahida, waa astaanta dib u dhaca, waa boog dalooshoo dadka maanka kaga taal. Dirxi qudhun ku nool iyo waa fadho nin daalin ah. Damqa oo ku joogsada, balse dira diraalow, dabka yaad u sidataa, yaad daafacaysaa. Haddii uunku kala dido, yaa dulinka kaalayn. Dibjir iyo nin xoolo leh, dambilaawe iyo tuug, docdoc weeye shicibkuye, yaa daawo leediin. Waxaan uga dan leeyahay, haddaad duulimaad tahay, riddo waa u meel dayo, doxor yahow abtiriyaa. Armaa dogobka qiiqa leh, darintaad ku huridiyo, dushaaduun ku hurisaa. Afartaa docdaa mari, tixdu way dagaal timi, waa daabad aan baqin, cilmi baa u diirad ah. Durbo gumici koowaad, waxay daartay nabarkiyo, waxaa doogta ugu wacan, dawadiisa may helin. Kuwa ararta daajiyo, rag baan ula dan leeyahay, deelaydu waa kow. Haddaba intaa haynoo joogto maansadii koowaad ee silsiladii caanka ahayd ee deelay. maansadaas oo magaceeda la oran jiray dugsi male qabyaaladi, uuna bilaabay maxamed xaashi dhamac gaariye. haddaba haddaad channel ku cusub tahay oo ay tahay markii koowaad ee aad soo booqato, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saadho si aad ula socoto silsiladihii kala duwanaa ee dhex maray hal abuurkii ugu khatarsanaa Soomaalida.